jahliga iyo dib u dhaca ka jira Yurub waa mid faa'iido inoo leh inaynu ogaano xaaladda Yurub gaar ahaan Andalus ka hor intaan Islaamku soo gelin iyo sida xaalku isu bedelay kadib markii Andalus noqotay mid ka mid ah dhulalka Islaamku gacanta ku hayaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يورو waxay waqtiga mid la nool dib u dhac iyo jahli waxa uu ahaa dulmiga qaanuunkooda madaxduna iyaga gacanta ku hayo xoolaha iyo kheyraadka ummadaba bulshaduna waxay la noolaayeen niyad jab halkii ugu darnaa waxay ahaayeen boqoradu qaar leh qasriyada iyo qalcadaha halka shacabkuna ay la'aayeen meel ay ka galaan dugaaga heer daran ayuu gaadhay faqrigu heer gaadhay in haddii aad dhul iibsanayso aad la iibsato dadka degan dhulka akhlaaqdii waa dhimatay xumaantina waa badatay حتى نظافة أمضاسي waxay ahayd mid liidata waxay sheegaan safarleydii xilliga u safar jirtay Andalus waa islaamka ka hore in dadku ay sanadkii hal mar ama laba jeer oo kaliya tameerin jireen iska daa wax kale waxay aaminsanaayeen inuu iska galin faa'iido u leeyahay jirka oo barako iyo khayr ay ka faa'iidayaan dadka qaar waxay isu fahmi jireen tilmaan taasoo macnaheedu yahay laba ilaahay luuqad ay ku hadlaan dadka qaari waxay sidoo kale qaarkood aaminsanaayeen caqiidooyinka hinduuska iyo majuuska oo waxay gubi jireen dadka ka dhinta iyo in marka ninku dhinto la gubo xaaskiisa oo nool ama jaariyadiisa ama qofku dadka ku jecel yahay sida waalidkiisa ama waaladii mid kamid ah hadaba Yurub guud ahaan waxay ahayd mid dulmiga iyo jahligu raadgaadiyeen islaamka ka hor waxaana ahayd mid ka fog wajto xadaaradii cilmi leeyahay Yurubna waxay cilmiga lagu soo gelisayba qarnigii 11 ilaa 12 ee miilaadiga haddaba gootiska ayaa gacanta ku hayay xukunka Andalus waxa isweydiin mudan sidee ku qabteen dib inoo yar celi dhamaadkii qarniga afraad ee miilaadiga waxay awoodeen goodku inay gacanta ku dhigaan qaybo kamid ah galbeedka imbaraadoradii Roomaanka waxaana hogaamiye u ahaa goodka waqtiga Alaric waxaana xilka saaray imbaraadoorkii Roomaanka ahaa Theodosius haddaba markii uu dhintay imbaraadoorkaasi sanadii 395 miilaadiga waxa uu Alaric noqday kadib dhimashada Theodosius hogaamiyaha ugu awoodda badan ee galbeedka iyo bartamaha Yurub sababta darteed ayuu isugu dayay inuu qabto hoggaanka imbaraadoradii Roomaanka waxaana ku guuleystay isku daygiisa sanadii 410 miilaadiga waxaana u soo maray dhib badan waana sii baari kartaa way si wacan bay uga faaladay kutubta reer Yurubku waqtigan waxay imbaraadoradii Roomaanka u saamaxday qabiilka Wandal inay degaan gobolka waqooyi galbeed ee jasiirada Wakaha Iberia waxaana shardi uga dhigeen inay si nabad dhulka ku degnaadaan waayo qabiilka Wandal wuxuu ahaa qabiil fara badan xaalkana wuxuu ahaa qabiil leh dhaqamo bahalnimo ah يدرودو ضعيفاyd waqtiga saadad ayaa loogu shardiyay inaanay xaalka sii waarin laakiin qabiilkan waxay ka talaabsaneen buriyeen shardigii waxaan isku wada balaadheen jasiirada Wakaha Iberia waxay xataa dhibaatooyin ka geysteen dhulalka gaalka oo dhici jiray halka maanta ku tahay dowladda Faransiisku inta kadib waxa soo dhamaaday hirdankii siyaasadeed ee imbaraadoradii Roma kadib dhimashadii Alaric waxaana xukunka qabtay Adolf inta kadib dowladdu waa awoodeysatay waxaana u soo gurguurtay dhanka iyo qabiilada Wandal si looga abaal mariyo ficilada sameeyeen inta kadib waxa la jabiyay qabiilada Wandal gaar ahaan waqtigii Valia oo ahaa hogaamiye awood badan hadaba in yar kadib marka ay daciiftay awoodii imbaraadoradii Roma waxay sameysteen good xukun u gaar ah waxaana goosteen jasiirada Wakaha Iberia waxaana loo tilmaamaa inuu Yuriik ahaa asaasaha dhabta ee dowladda goodka galbeed waxaanu mansabka boqornimo qaatay sanadii 467 miilaadiga hadaba hal sano ka hor inta islaamku aanu soo galin Andalus waxa la caslay boqor Qidshah waxana xukunkii la wareegay Lodreg taasoo ula jeedo markii la furtay Andalus waxa gacanta ku hayay boqor Lodreg intaas ayaan ku soo koobnay xalqada koowaad ee taxanaynaa Andalus والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.